أنا وذي القربى واليتامى والمساكين بإلهي كحكسيي دائرة أفراد وبلشوين تاما وقرآنكو سيبا كسي تلماما يقيب تيدا ضعفضا اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل دائرة وأوسع سنة حديد كابن آدم نمال السمايا والدائرة الخامسة والعلاقات الإنسانية دمانتد وإلهي سبحانه وتعالى كتلماما ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين هدبا آدنها حديدك كدحية أصل وحوى العدل والإحسان دمانتي مع المخالف أصلكو والعدل والإحسان وحين مركا إنك درسيان لو قنديين ونقضوه ككساب سلسلة الرحم أما قرابضة يددك طولك اللي حديد كيسة الإحسان إلى الأقارب أما السمافلك الله سمافلو ددك كودو وحيكو صليسان تاي هدبا أود قفكو ليه هي إياك الله حديدين يا أودي سبو إمام النووي ليه رحمة الله عليه رسول حليه مرة حدعي كرتين أدون نقطه وحول لسكو عاوي ولا لسكو حديديو مرة حدعي كرتبو ليه خدمة يشغال نمن نقطه ولا يسو شقاي ولا يسعاويه مرة حدعي كرتبو ليه حديدكو هذا الزيارة يا السلام isbooqasho iyo salaan marka aynu joogno wadanadan galbeedka waxaad moodaa inay iyaga caan agtooda ka tahay wax privacy la yiraahdo qofka iyo dawladda xidhiidh leh laakiin bulshadan ka sokaysa in badan inaan xidhiidhkiisu badnayn walidaalika inaanad arag ilmo iyo aabihi ama waalidkii oo isxidhiidhinaya iyada qaraabo kale ka kaalaya la dhaqanka lala dhaqmo bulshooyinka noocaasiina wuxuu dhaxal siinayaa dadka in dhaqamadooda wax badan oo ka mid ah ay bulshada ku dhex faafaan oo la qaato walidaalika baad moodaa in loogu talagalay muslimka muqtaribka ah ama muslimka carrigii muslimiinta ka soo durkay ee dhul shisheeye degay ee dhaqan iyo hidde kale la noolaaday looga cabsi qabo inuu ku milmo ama la wadaago dhaqamadooda in badan la xasuusiyo dhaqanku islaamku lahaa iyo diintu wixii ayna faraysay waxa kamid ah inuu markaa leenay diintu waxyaabo ugu waaweyn farayso waxa kamid ah silatu rixm qaraabada iyo rixmka ama xagga hooyaha ka soo jeedaan ama xagga aabaha ka soo jeedaan in la xiriiriyo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إلهي سبحانه وتعالى وحينات الماما يسموه إنان وهينون عباداتك بدني قال السمايو كلية ومشرقي مغرب سلاد اللولة يستوقر إنان يهين وحا الصحة هينو يهي رمينت الرب للرمية إيا مالنت القيامية ملائكتي إيا كتبت إيا النبي يده وحا إلهي سبحانه وتعالى أركان الإيمان كي كحديدي وآتى المال على حبه ذوي القربى يهانتي حولا إن لسيا يدو لجعليه ولبا حولا ساعة بدنات كسور ديدي oo waqti badan ka galay inaad hadana bixiso oo aad si sabay ilaahay leeyay dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil kuwa qaraabada oo saaxiibka ah agoonta iyo masaakiinta iyo kuwa jidku ku go'ay waayay safarku ku dhex go'ay iyo saa'ilin iyo wixii la mid ah waxaan u tilmaamaynaa aayadkan quraan badan baa ku soo aroray iitaa'u dhil qurba yasalunaka madha yunfiqun waxay ku weydiinayaan maxaanu bixinaa qul ma anfaqtum min khayrin falilwalidayn walaqrabin walyatama walmasakin wabn as-sabil wixii aad bixisaan khayra baa ilaahay yidhi waalidka ay ku xigto qaraabadu ay ku xigto bulshada weyne kale inteeda baahan
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إلهي سبحانه وتعالى آيات بدن قرآنه أيو حكت المامية dadka kugu xaq leh in wax la siiyo inay yihiin koow waalid kadibna qaraabada kadibna ducafada muslimiinta ah. bal ee qaraabada ilaahay wuxuu tilmaamayaa haddii waalidku dhinto oo la dhaxlayo dadka dhaxalka leh siiba hadday qaangaadh yihiin goobta dhaxalka marka la joogo qaraabada kale soo xaadirtee timaada ee aan dhaxalka iyagu wax ku lahayn in wax la siiyo. وإذا حضر القسم أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه بإلهير وحكسيو كارزاقا وقولوا لهم قولا معروفا. آيات كقرآن يا آيات بدن وكلا قرآن وحي تلماميان قرابة حديد كيوبا هين لحديديو حديد كاسها نقضا مد هنتيات مد عاومة كلاء مد بوقشاء مد سلانة intaba inay xidhiidhkaasi xaq u leeyihiin dadka qaraabada iyo sokoayaha iyo dadka ku dhow. inta aanan tafaasiil badan gelin nusuus badan oo qur-aanan akhrinin waxaan tilmaamayaa waa waxyaabihii ugu horreeyey ee shareecada islaamiga ay la soo degto. qaraabada xidhiidhinteedu waxay soo degtay tawxiidkay la socotay. qaraabada xidhiidhinteedu waxay la socotay tawxiidka. ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام حديث مثلا ورينيو عمر بن عبس السلمي الصحابي اللي ورنشري أيا وحليه هي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وقت الجاهلية ديام شوقي بيقولي هدنا وحن أركي يندتكو وحنا يسميني أنا بعضتها هي دين تنا يدتكو هيستين وقت الجاهلية أنا صحين باين مقتي بيقولي ووحيدتك أنا عابدا ينسنم يا وحلم إذا وحاسين أنا صحين waxaan markaa maqlay buu yidhi in makanin ka soo baxay oo akhbaar cusub wada markaasaan soo fuulay buu yidhi neefkaygii daabadaydii anigoo raba dadkani waxaanay ku sugan yihiin waa dalaale bal ninkan cusubi wuxuu sheegayo inaan soo maqlo. makanin buu yidhi waxaan u imi buu yidhi iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam مستخفيا جراء عليه قوم سقوا أهبولي فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخفيا جراء عليه قوم إيادو نبي قولوا أيوه وتلكين أي كل رين الله دبيو يعني والدعوة مركب بلابان طيبة ونبي عليه الصلاة والسلام لدبي وقولوا من أيبولي إسلام كان اللي كل رين الله دبيو dabeetana waan u soo dhuundhuuntay buu leeyay ilaa aan u imi nabiga calayhi salaatu wasalaam camar ibnu cabas assulami nin reer miyiga abaa u yimi su-aaluu nabiga weydiinaya. su-aalaha wuxuu kaga bilaabay maa anta man anta ma laha kumaatay ma leh ee wuxuu leeyay maa anta maxaa tay. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ana nebiyun anigu nebi baan ahay buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. ninkan muslimka noqday ee reer baadiyey wuxuu ku yidhi markaa wama nebiyun oo nebigu waa maxay. nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu nebi baan ahay isna wuxuu yidhi haddaba nebigu waa maxay buu ku yidhi. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay arsalanii allah ilaahay baa isoo diray buu yidhi ilaahay baa isoo diray. wuxuu yidhi markaa wabiayi shayin arsalak oo muxuu kugu soo diray. ilaahay haba kuba soo diree waxaad wadeen risaaladaadu waa maxay. wuxuu nabigu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam arsalanii bisilati الraxm bisilati اlarxaami wa kasri اlawhaani waan yuwaxad allahu laa yushraku bihi shayun. saddex shay baa laygu soo diray buu nebigu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam wa fii awali الrisaala nebigu wuxuu leey waxaa laygu soo diray qaraabada xidhiidhintii iyo asnaamta burburinteed iyo in ilaahay keligii la caabudo aan loo shariig yeelin saddexdaa qodob baa laygu soo diray buu nebigu yidhi. idan culammadu waxay yidhaahdaan waxyiyadii u horreeyey nebiga la soo faray waxaa ka mid ah tawxiidka in dadka loogu yeedho, asnaamta in la burburiyo, iyo in qaraabada la xidhiidhiyo.
ma awoodeen wakhtigan inuu nebigu aslaamta burburiyo laakiin inay mabda' tahay buu tilmaamayay islaam burburiskii nebigu wuxuu bilaabmay wakhti dambe laakiin warka kan waxaa loo sheegayaa mabaadi'da islaamku uu la yimi waxa uu yahay waxaan weydiiyey buu yidhi faman macaka calaa haada warka ayaa kugu raacsan nebigu wuxuu igu yidhi buu yidhi xurun wa cabdun dad xor iyo addoommaba way la socdaan buu nebigu ku yidhi markaasuu saxaabigani wuxuu leeyahy markaa waxaa la socday abubakar iyo bilaal baa ka mid ahaa buu leeyahy markaa kuwii rumeeyey waxaan ku yidhi buu yidhi aan ku raaca haddaba aniguna waa ku rumaynayaaye waa ku rumeeye aan ku raaco nebigu wuxuu igu jawaabay buu yidhi hadda ma awoodid innaka laa tastatiicu dalika yowmaka haada maanta ma awoodid inaad iraacdid buu yidhi alaa taraa xaalii wa xaala annaas miyaaday arkayn buu yidhi aniga iyo dad waxna kala haysta anigii baa dhuumasho ku jire adigoo baadiye ka yimi xaggaad ii raaci buu ku leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam iska noqo buu nebigu ku yidhi reerahaagii ku noqo beriga aad maqasho inaan guulaystay markaa ii kaalay buu nebigu ku yidhi iminka intaad iska noqoto ilaahay rumee dabeetana iska tag reerihiinni ku noqo marka aad maqasho inaan guulaystay markaa ii kaalay buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabigani wuxuu leeyay dabeetana waan iska noqday reerkayagii baan dib ugu noqday muddaan akhbaarta dhegaysanayay bal waxa maka ka soo kordhay iyo waxa isbeddelay markii dambaa waxay soo gaadhay war ah inuu nebigu uu hijrooday oo madiino tegay baa soo gaadhay buu yidhi markaasaan soo baxay buu yidhi dad reer yasriba waxaan warwaraystaba dad reer madiina baan helay buu yidhi waan weydiiyey waxay idhahdeen ninkaasi waa yimi siduu xaalkiisu yahay baan ku idhi buu yidhi waxay idhahdeen dadkii way raaceen markaasaan madiino soo galay buu yidhi nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi atacrifunii waa nin reer miyiya may garanaysaa buu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu u yimi nebiguna wuxuu ku yidhi qaala nacam waan ku garanayaa anta aladii laqiitanii bimaka ninkaanu beriga hore maka isku aragnay baa tahay buu nebigu ku yidhi markaasaan idhi buu yidhi haa ee ilaahay rasuulkiisiiyo wixii alla ku baray wax iga bar oo bal salaadda iga warran horta waxa la yidhi waa la tukanayaaye markaasuu nebigu u sharxay calayhi salaatu wasalaam salaad iyo tahaaro iyo islaam xadiidka waxaan u soo qaadanayaayoo keliya mas'ale ah waxyaabihii ugu horreeyey diinta ka soo dega waxaa ka mid a xidhiidhkaasi bulshadu inay isku xidhnaato sida daraaddeed ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamayaa ninkaa reer miyiga ee ugu yimi isagoo dhuumasho uu ku jiro xilligii hore islaamka ay tahay in waxyaabihii nebiga loo soo waxyooday ilaahay soo faray ay ka mid tahay qaraabadoo la xidhiidhiyo iyo sanamadoo la burburiyo iyo ilaahayoo keligii la caabudaan cidna loogu shariik yeelin waxaad ka garan kartaa waa acmaashii ka soo hadhay diintii nebi ibraahim bay ka mid tahay silatul arxaam waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu waxyigu ku soo degayba ee uu baqayey khadiijo waatii ku tidhi innaka latasilu larxaam waxay lahayd adigu nin fiican baa tahay oo dadka caawiya qaraabada waad xidhiidhisaa bay ku tidhi oo qofka dhibban waad u gargaartaa oo yacni wuxuu nebigu samayn jiray bay tilmaamtee wanaagga ahaa marka waxyaabihii koowaade ay ku leedahay ilaahay ku dhibi maayo khadiiji waxay lahayd innaka latasilu raxim raximkaad xadhiidhisaa waxaa kuugu filan wakhtigii la farad yeelay ama la waajib yeelay ama laysfaray in la xidhiidhiyo qaraabada waa wakhtiyadaa hore xataa muslimiintu wakhtiyada ay u hijroonayeen ardi alxabasha waxaa dhacday caaisha waxay leedahay anugu waxaan garaadsaday labadayda aabbo oo muslimiinuun baan garaadsaday yacni aabbiyo hooyo oo nebiguna calayhi salaatu wasalaam maalin walbana soo booqdo gelinka hore iyo gelinka dambaba markii muslimiinta la dhibay ee badh ay dhulkay xabashida u hijroodeen ayuu abibakarna magaalada iskaga baxay abibakar meel la yidhaahdo barka alkhimaad isagoo maraya ayuu wuxuu la kulmay qabiilka alqaara la yidhaahdo suldaankoodii ama odaygoodii buu la kulmay ibnu dakhina nin la yidhaahdo ibnu dakhina wuxuu ku yidhi ayna turiidu ya abibakar odaygaa waa yeelkaaba wuxuu yidhi war abibakarow xaggaad ku socotaa maxaa xaggeed u socotaa abibakar wuxuu yidhi tolkaybaa i soo saaray waxaan rabaa an asiixa fi lard wa acbuda rabbi waxaa jiri jirtay qabla alislaam cibaada siyaaxa la yidhaahdo oo ah qofku intuu iska dhaqaaqo isagoo aan meel gaara u soconin
dhulkiisa uun iska maro si uu ilaahay u caabudo. abi bakar markaa wuxuu leeyahay anigu meel gaaraba kuma socdee asiixu fi lard, dhulkaan iska maraya waan socdaa, waxaanan rabaa inaan ilaahay caabudo. saa'ix inaan noqdo, saa'ixu tuuriskana aynu imika sheegna maaha, waa saa'ixiinta qur-aanku uu ka warramayo wixii la mida. dabeetana ibnu daqina ninkaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi abi bakar ow adigoo kale dhulkiisana kama baxo lamana saaro. nin wanaag sameeyo oo waayeela oo odayo oo dadku ka dambeeyaad ahayd, markaa adigoo kale nin iska tagana ma tihid, nin la saarana ma tihid. abi bakar markaa muxuu ku ammaanayaa? ibnu daqina wuxuu yidhi innaka taksibu almacduum wa tasilu alraxim wa taxmilu alkal wa taqri dayf wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq fa ana laka jaarun. intii ay khadiiji nebiga ku lahayd oo kale buu ku yidhi. wuxuu yidhi kaan waxaysan nin wax siiya baad ahay, oo qaraabo nin xidhiidhiyaad tahay, oo kii culus nin culayska ka fudaydiyaad tahay, oo martida nin sooraad tahay, oo dhib qofka ay haysato ku kafayda baad tahay. yacni waxa laaliya waxa wanaag dad loo qabto nin qabtaad tahay. suurtagal maaha ninkaaga caynkaasi in maanta la saaro la yidhahdo iska tag, ee waxaad yeeshaa anigaa magangelye ku siiyey. carabtu dhaqan bay lahayd qabaa'ilka ama ragga waaweyni cidday doonaan bay magangelye siin karayeen. marka intuu qabaa'ilka iyo dadka isugu yeedhaaba waxay odhan jireen dhegaysta, hebel anuu maganteeye ninkii taabta dee waa noo tahay, reer hebel bay isku madhanayaan markaa weeyaan. markaa ciddu magangelye siiyaan sidaa dowladuhu hadda magangelyada dadka u siiyaan bay u siin jireen. wuxuu ku yidhi ibnu daqina abi bakar wanaa magangelye ku siiyey, nin baxa ma tihid, ini celi. quraysh buu u keenay. dabeetana wuxuu yidhi qurayshay abi bakar nin la saara maaha, waa nin keenna wax siiya, qaraabada xidhiidhiya. intii buu sheegay. qurayshi may beeninin abi bakar inuu sidaa yahay, may beeninin. waxay yidhahdeen ibnu daqinow waanu aqbalay magangelyadaadaad siisay ninkan, laakiin bishart baanu ku aqbalaynaa. waa maxay shardigu? gurigiisa ha joogo ilaahay ku caabudo bay yidhahdeen. waxa uu rumaysay gurigiisa ha ku caabudo, salaaddiisa gurigiisa ha ku tukado, qur-aankiisa gurigiisa ha ku akhristo, yaanu meelaha noogu imanin oo nagu dhibin, ama carruurta iyo dumarka yuu naga waalin bay yidhahdeen. ninkani gurigiisa wuxuu doonaya ha ku qabto, laakiin dabadaha yuu ula soo bixin. ibnu daqina abi bakar buu sidii ku yidhi, abi bakarow waana iyana cabashay sheeganayaan, magangelye anaa ku siiyo cidi ku taaban mayso, laakiin waxa aad caabudayso iyo waxaad samaysanayso gurigaaga ku samayso. sidii buu abi bakar muddo ku joogay. dabeetana abi bakar waa la noqon weyday, guri iska fadhiyo ilaahay caabud. masaajid yar buu guriga hortiisa ka samaystay, meel yar uu ku tukado. meeshii uu ku tukanayay buu salaadu galaa, qur-aan buu kor u akhriyaa. qur-aanka markuu akhrinaya abi bakar waa nin bakaa buu ahaa baa la yidhaha, waa nin oohin badan buu ahaan jiray. ilaahay markuu is hortaagu ilmeeyaa, qur-aanka akhriyaa, dumarka iyo carruuraha iyo dadka meesha maraya ku soo urura, waa la dhegaystaa, way la tacajabaan. nin keligii meel taagan oo ooyaya oo tukanaya bay la yaaban yihin. waa adigoo un dee kuwanaa la nooshiin intaad bannaankaas shaahidda dhigato, innaga malaa dee isheenna ilmi kama soo dhacdee qur-aan akhrinayo ilmaynayo kugu soo ururaanu way garan la'yiin ninkan keligii meesha taagan ee ooyaya waxuu hayo. ibnu daqina waa lagu noqdo, waxaa la yidhi ninkii uu ka baxay ballankii inoo dhexeeyey, haddii aad rabto inaad jaarnimadaada uu ku jiro meeshii ha ku noqdo. abi bakar buu ibnu daqina u yimi. dabeetana wuxuu ku yidhi abi bakarow arrinkan waxaan rabaa, dee ballankii waad burisay, ballankeenu saaya saasuu ahaa, nimankanina dumarkooda iyo carruurtooda ay kaaga cabsi qabaan, dee gurigaaga ilaahay ku caabud. abi bakar wuxuu yidhi dimadaadii baan kuu celiyey, niyow anuu meeshan ku noqon maayee magangelyadii aad siisay baan kuu celiyey, maanta laga bilaabo mas-uuliga ma tihid, waxba cidna carabiyay kuu eed sheeganin. xadiidku waa xadiid dheer, laakiin anigu ilaahay jaarnimadiisaan raalli ka ahay buu yidhi, sidaa inugu kala kaxee. xadiidka kan innagu maxalu shaahidka aynu uga dan leennay waxa weeyaan, abi bakar waxaa la yidhi ma tihid nin la saaray iyo nin baxatoona, waayo qarabadaad xidhiidhisaa. yacnii inay ahayd wakhtigii muslimku uu cidhiidhigaba ku jiray, waa wakhti aan salaadiba waajibin, ama aan arkaan badan oo islaamigii soo degin, ama sharaa'ic badan oo islaamiga aanay soo degin.
laakiin islaamnimada ay ka mid ahayd in la xidhiidhiyo qaraabada in la xidhiidhiyo. walidaalik ayaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam axaadiistiisa markaynu eegno in badanoo ka midi maalan markuu abu sufyaan oo gaal ahaa boqortooyadii romaniska ay kulmeen heracles ninkii la odhan jiray markii uu shaam ku kulmeen ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam waraaqda u diray heracles uu leeyahay islaam ayuu heracles wuxuu weydiistay madaxdiisii meesha joogtay war ninkaa waraaqda ii soo diray wax tolkiiyo magaalada waddankeenna joogaa ma jiraan. waa la raadiyey safar qurayshoo ka yimi maka oo meesha jooga abu sufyaan hogaaminayo ayaa la helay. abu sufyaanna markaa waa gaal, waa dagaaladuu nebiga kula jiraa. wuxuu yidhi igu yeedha meeshaa la fadhiisiyey qiso dheer. abu sufyaan 14 su'aalood ama 13 su'aalood buu weydiiyey oo uu ku itixaamayo uu rabo ninkan iyo taariikhdiisa dhabtaa inuu helo. waa markuu odhan doono hiraqal wallaahi baan ku dhaartee halkaan fadhiyuu qabsan doona kaasi, yacni inuu nebi xaqayay, laakiin markii lagu kacay ayuu madaxnimadiisi iska xejisto gaalnimadiisa iska haystay. herakal waxyaabihii uu weydiiyey marka abu sufyaan waxaa ka mid ah muxuu idin faraa buu yidhi. ninkani waxa cusube uu la yimi waa maxay? yaamuruna biالsalaati wالsadaqati wاlcifaafi wالsila buu yidhi. wuxuuna farayaa salaad ilaahay loo tukado, wax bixin wax la baxsado, dhowrsanin la dhowrsanoodo, iyo wasila xidhiidhin tolka iyo qaraabada la xidhiidhiyo, in qaraabada la xidhiidhiyo ayuuna farayaa. idan maka markii la joogay nebigu calayhi salaatu wasalaam caynkaasu ahaa. maalintuu madiine galay ee dadku ka hor yimaadeen ee ansaartu ay soo dhowaynaysay, niman yuhuudda ka mida ayaana soo raacayay oo eegayey bal nebi maxamed sifooyinkii kitaabkoodu ku qoraa inuu leeyahay oo rasuul yahay iyo in kale si ay u hubiyaan. dadkaa soo raacay waxaa ka mid ahaa markaa cabdillaahi ibnu salaam saxaabigii la odhan jiray oo markaa nin yahuudi oo caalim ah, waa culammadii ugu waaweynayd yahuudda. xadiidkiisu ninkana wuu dheer yahay, laakiin maxalu shaahidkun baan soo qaadanaya. ninkani aakhirkii wuu islaamay, laakiin wuxuu yidhi markii aan u imi aan eegay buu yidhi waxaan arkay buu yidhi wejigani weji beenaalaa inaanu ahayn, qof kadaaba inaanu u weji ekayn nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. wixii koowaad ee markuu afka kala qaaday aan ka maqallayna buu yidhi, waa markuu nebigu madiine yimi, wixii koowaad aan ka maqlay waxay ahayd buu yidhi isagoo leh ayaan u imi buu yidhi ayuha annaas afshu الsalaama wa aطcimu الطacaama wasalluu wannaasu niyaamun tadkhulu اljanna. riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayeen in xidhiidhintuna ay ku jirto. calaa kulli xaal axaadiistaa markaynu eegno ama nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka uu tilmaamayo in allaha khalaqa alkhalq xataa idaa faraga minhum qaamat الraximu faqaalat hada maqaamu اlcaa'idi min alqatiica. nebigaa wuxuu leeyahy alayhi الsalaatu wasalaam markii ilaahay khalqiga abuuray ayaa qaraabadu ay ka cabatay in la goynayo. dabeetana ilaahay baa wuxuu ku yidhi miyaad raalli ka ahayn inaan xidhiidhiyo wixii ku xidhiidhiya, inaan gooyo wixii ku gooya. dabeetana saasay raalli ku noqotay buu nebigu tilmaamaya. iqra'uu in shi'tum buu nebigu yidhi aayaadkan qur-aan u akhriyay fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaطicuu arxaamakum. fahal casaytum ay hal tawaqactum, ma filaysaan haddii aad jeesataan oo diinta qaadan weydaan inay dhulka fasahaadisaan oo riximka goysaan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala, arxaamtiina aa goysaan. nebigu calayhi الsalaatu wasalaam axaadiista ka asaxday waxaa ka mid ah wuxuu nebigu leeyahay 3 uqsimu calayhin, 3 waan ku dhaaranaya, xadiidna waan idiin sheegaya ee xifdiya. 3 ku dhaaranaya nebigu waa maxay? xoolo sadaqa ma yaraysa buu nebigu leeyahy, xoolo kuma yaraadaan ilaahay xaggiisoo la dhigto. walaa dalama cabdun madlama walaa dulima cabdun madlamatan sabra calayha, lama dulmiyo addoonna oo dulmigaa kuma sabro oo ma cafiyo iskama dulqaato ilaa zaadahu allahu ciza, ilaa iyo cafigaa ilaahay wuxuu ugu kordhiyaa sharaf. qofna albaabka mas'alada ma fura buu nebigu leeyahy ilaa iyo baab faqri baa loo furaa. waa xisiidu hadday kugu badato gaal iyo muslim ciddaa doontaba bariya, baryadu ma fiicna. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy walaa fataxa cabdun baaba mas'ala,
qof ma furo albaabka baryada ilaa ya ilaahayna albaabka faqrigu u furaa. hal shayna waan idiin sheegayaa qayba buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waa maxay? adduunku waa afar unbuu nebigu leeyahy, afar qof unbaa adduunku u sugnaaday. afarta qof laba waa ammaanantay, labana waa ceebaysantay. labada ammaanan waxaa ka mid ah addoon ilaahay maal iyo cilmi isugu daray buu nebigu yidhi. addoon ilaahay uu siiyey xoolo iyo cilmi, fa huwa yataqii rabbahu fiih, xoolaha iyo cilmiga ilaahay siiyey rabbigiibuu kaga cabsanaya. wayasilu bihi raximah, nebigu wuxuu leeyahay raximkiisana qaraabadiisana wuu ka xidhiidhinaya. ilaahay xaqa uu ku leeyahay ee zake iyo wixii la midana waa gudanaya. kaasi aakhiro afdalu lmanaasil buu degayaa buu nebigu leeyahy, meelaha ugu sarreeya. idan jannada dhulka ugu sarreeya waxaa lagu dego waxaa ka mid ah sida xadiidkani tilmaamaya rabbiga cabsidii iyo haddii ilaahay wax ku siiyo inaad xidhiidhiso dadka qaraabada ku ah. xadiidka maxalu shaahidkun baynu ka soo qaadannay. waxaynu u dhaafaynaa oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay acmaashii jaahiliyada la samaynayey, wakhtigii islaamka ka horreeyey la samaynayey, oo ay ka mid tahay qaraabo xidhiidhintaa. qofku hadduu islaamo inuu camalkaana xataa ajarkiisii weli uu helayo, walow markuu samaynaya uu gaal ahaa, laakiin markuu islaamay in laga aqbalayo. walidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimi xakiim ibnu xasaam, saxaabi la odhan jiray, oo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo bal ka warran arrimo aan samayn jiray berigii jaahiliyada, waxba ma helaya. waxyaabuhu sheeganaya markaa waxaa ka mid ah silatu raximkaas. aslamta calaa maa aslafta min khayr baa la yidhi. aslamta calaa maa aslafta min khayr, wixii aad samaysay khayr aad horu marsatay waad la islaamtay buu nebigu u tilmaamay. qaraabada xidhiidhinteedu waxayn leenahay markaa waa min addiin. haddaba waa goorma? dadka badh baa waxay u haystaan xidhiidhintu inay tahay markay ku xidhiidhiyaan inaadna xidhiidhisa. nacam, taasi waa sax, waa abaalgud. laakiin waxa weeyaan xataa hadday ku dhibaan oo ku gooyaan, adiga way kugu leeyihiin xidhiidhintii. isagaa dembaabay, laakiin adiga way kugu leeyihiin maxay? xidhiidhintii. walidaalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laysa alwaasilu bilmukaafi. waasilka, ninkan silatu raximka samaynaya, ninkan wax xidhiidhinaya, ninka abaalguday maaha buu nebigu yidhi. ninka abaalguday dee tolka markaa isku fiicantihiin iyanay wax ku taraan, adna aad wax tarte, ilmaadeer iyo ilmaabtiyo habarwadaag iyo dad qaraabo isku dhowaatiin wax istartaan, dee waad abaalguday markaa. wixii lagu tarunbaad adna wax ka celisay. kaa maaha buu yidhi nebigu kaynu ka hadlaynaa. kaasi waa mukaafi baa la yidhi, waa nin abaal lagu lahaayo abaalkii guday. laakiin kaan sheegaya walaakina alwaasilu alladii idaa quطicat raximuhu wasalahaa buu nebigu yidhi. waasilku waa ka marka ay gooyaan qaraabadiisu isagu xidhiidhiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. dee qur-aankana waxaa ku taalla xaadiثatulifki markay dhacday, dhacdadii been abuurkii ee laga faafiyey caaisha ridwaan ullaahi calayha, ee abibakar ayaa wuu dhaartay. wuxuu ka dhaaranaya nimankan warka rumaystay, munaafiqiin baa warta sameeyey, laakiin dadka badh baa jira warka aan hubina iska rumaystay. niman muslimiin oo waaweyn oo muhaajiriin iyo ansaarba leh ayaa run mooday warkiiyoo faafiyey iyana. waxaa ka mid ah xasan ibnu haabit, shaacirkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ansaariga ahaa. waxaa kaloo ka mid ah muhaajiriinta mistax ibnu athaath, waxaa ka mid ah xamna. waxaa la yidhahdaa dadkii faafiye ka qayb qaatay bay noqdeen. dabeeta abibakar wuxuu ka xanaaqay. mistax ibnu athaath ninkan la yidhaahdo hooyadii iyo abibakar baa habro wadaaga. markaa abibakar qaraabanimo iyo tolliimo daraaddeed isaga iyo hooyadiiba isagaa biila. abibakar baa wuxuu biilaa mistaxan, iyo hooyadiiba abibakar baa biila. isagoo abibakar labadaba wax siinaya ayuu haddana inankii wuxuu wax ka sheegay maxay? caaisho ay qaraabo yihiin. abibakar arrintiibuu qaadan kari waayey. markaa wuxuu ka dhaartay inaanu wax damba siinin. waan ku dilayaa iyo waxbaan samaynaya kale abibakar ma leh, bes wax siintaydaan kaa haysanayaa buu leeyay, wax damba ku siin maayo. ilaahay baa qur-aan soo dejiyey leh walaa ya'tali ululfadli minkum waasacati an yu'tuu ulilqurba. yay ka dhaaranin ilaahay baa leh kuwa dheeraadka la siiyey
iyo nolosha loo ballaadhiyay yay ka dhaaranin dadka faqarada iyo muhaajiriinta ilaahay dartii u soo hijrooday inay wax siiyaan yay ka dhaaranin baa ilaahay yidhi alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum walyacfuu walyasfaxuu ilahay wuxuu yidhi ha dhaafaan oo ha ka jeestaan miyaydan jeclayn idinba baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala in ilaahay dembigiinna dhaafo idan abibakar waxaa la farayaa iyadoo mistax uu dhibta tan geystay haddana inuu weli xidhiidhiyo oo wax siiyo ayuha alaxiba waxa uu nebigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam man sarahu an yubsita calayhi risquhu aw yunsa'a fii aharihi falyasil raximah ama man axaba an yubsata lahu fii risqihi wayunsa'a lahu fii aharihi falyasil raximah nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkan wuxuu leeyahy ninkii jecel in arsaaqda loo waasiciyo cimrigana loo dheereeyaa tolkii ha xidhiidhiya buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam yacnii min asbaab lagu ballaadhiyo qofka arsaaqda ilaahay ugu ballaadhiyo waxaa ka mid ah inaad qaraabada xidhiidhiso inaad kahanin marka wax lagu weydiiyo waxaa ka mid ah waxyaabaha ilaahay cimriga ku dheereeyo amase ku barakeeyo xidhiidhinta qaraabada buu nebigu leeyay alayh salatu wasalaam saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyay ninkii jecel in ilaahay arsaaqdana u ballaadhiyo cimrigana u dheereeyow qaraabada xidhiidhi buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam haddaba ayuha alaxiba axaadiista nebiga ka asaxday waxaa ka mid ah man kana yuuminu biاllahi walyowmi alaakhir falyukrim dayfah waman kana yuuminu biاllahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut waman kana yuuminu biاllahi walyowmi alaakhir falyasil raximah iyo falaa yu'di jaarah labada riwaayadoodba saxiixay ku soo arooreen nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam ninkii ilaahay iyo maalinta qiyaame rumaysanow martida soor ninkii ilaahay iyo maalinta qiyaamaba rumaysanow jaarka ha dhimin walow gaalla ha ahaado ninkii ilaahay iyo maalinta qiyaamaba rumaysanow ama khayr ku hadal ama iska aamo wuxuu kaloo nebigu leeyahy waman kaana yuuminu biاllahi walyowmi alaakhiri falyasil raximah ninkii ilaah iyo rasuulba rumaysanow war qaraabadaada xidhiidhi buu nebigu leeyay calayhi الsalaatu wasalaam ilaah iyo rasuul haddaad rumaysan tahay qaraabada xidhiidhi buu nebigu leeyay calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka mid ah axaadiista nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu inoogu tilmaamayo inay yihiin dadka u mudan ee sadaqa la siiyo markaad wax bixinayso dadka ugu mudan ee wax la siiya inay iyaga yihiin waxaa dhacday maymuuna bintulxaaris haweenaydii la odhan jiro oo ka mid ah haweenkii uu nebigu qabay calayhi الsalaatu wasalaam axaadiistan inta badan saxiixaynka ku soo aroray aan akhrinayaa ayaa gabadh yaroo weliida gabadh yaroo ay haysatay oo addoon yar u ahayd ayay xoraysay dabeetana waa iyadaa nebigu la joogin calayhi الsalaatu wasalaam toogadeedii markuu nebigu guriga wakhtigeedii uu yimi ayay u sheegtay oo waxay tidhi waa sii daayey dabeetana nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi low acطaytihaa akhwaaliki kaana acdama liajriki haddaad siin lahayd buu yidhi abtiyadaa ayaa kuu sii ajar badnaan lahayd buu nebigu leeyay calayhi الsalaatu wasalaam abtiyadaa haddaad ku sadaqadaysan lahayd oo siin lahayd ayaa kuu sii ajar badnaan lahayd idan ama abti ha noqdo ama xataa reerka laftiisa ha noqdo xaaskaaga ha noqdo ama islaanta odaygeeda ha noqoto maalan zaynab gabadhii la odhan jiray oo ah cabdillaahi binu mascuud xaaskiisii ayaa waxay leedahay nebigaan maqlay oo nugu leh tasaddaqna yaa macshara الnisaa'i walow min xulyikun haweenow wax sadaqadaysta dahabkaa xidhantiinna ha noqdaane haweenkow wax sadaqadaysta dahabkaa xidhantiinna ha ahaata buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam gabadhaasaa markaa waxay tidhi markaan xadiidkaa nebiga maqlay calayhi الsalaatu wasalaam ayaan u imi bay tidhi odaygeedii cabdillaahi ibnu mascuud oo odaygeedii bay u timi dabeetana waxay tidhi waar cabdillaahu adiguba faqiir baad nin khafiifu daati اlyad nin waxayste ma tihid ee orod nebiga u tag calayhi الsalaatu wasalaam wuxuuna faray sadaqee waxaad soo weydiisaa war adiga ma kugu baxaysa aan ku siiya bay leedahay waa odaygeedii
laakiin waxay leedahay adba caydh baato wax ma haysa islaantaa wax haysata hanti leh laakiin cabdillaahi ibnu mascuud waxba ma haysto nebiguna dumarkuu la hadla wuxuu ihi wax sadaqadaysta dabeetana waxay ku leedahay odaygii war adba faqiir baato waxba ma haysatide orod u tag nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad soo weydiisaa ma kugu baxaysaa haddaan adiga ku siiyo cabdillaaha wuxuu yidhi markaa maya anuu nebiga u tegi maayo orod adigu u tago soo weydiiso anuu nebiga u tegi maayee adigu u tago soo weydii buu ku yidhi waxay tidhi markaasaan soo baxay dhexda markaan socdaba waxaa igu soo baxday bay tidhi gabadh kaloo ansaara oo iyana masaladaydiiyo kala wadata iyana rabta inay nebiga weydiiso ninka haddii wax la siiyo ma ku baxaysaadaa labadii dumarabaa isa soo raacay gurigii nebiga yimaadeen calayhi salaatu wassalaam markay gurigii nebiga yimaadeenna waxay leeyihiin nebiga aad buu haybad u weynaa markaa waa laga cabsan jiray waanu ka cabsanaynay bay tidhi dabeetana bilaal baa noo soo baxay bay tidhi bilaal baa waxaanu ku nidhi bay yidhaahdeen i'ti rasuula allahi sala allahu alayh waaalih wasalam faahbirhu anna imra'atayni bilbaabi tasalaanik nebiga u tagoo waxaad ku tidhaahdaa laba dumar oo albaabka jooga ayaa nebi allo waxay ku weydiinayaan odayadayada wax ma ku sadaqadaysan karnaa sidaa bilaalow nebiga ku dhaba yidhaahdeen iyo agoon yaroo aannu haysanno waa calaa itaamin fii xujuurina odayadayada iyo agoon gurigayaga joogtaa wax ma ku sadaqadaysan karnaa oo hanoo sheegin bay yidhahdeen kuwaannu nahayna bilaal bay leeyihin hanana sheegin su-aashaana nebiga noo soo weydiiyey bilaal baa nebiga u soo galay calayhi salaatu wasalaam su-aashii buu weydiiyey nebigaa markaa su-aal ku soo celiyey wuxuu uhi man huma war waa kuma dumarku labada dumar ee bilaal uu su-aashii ku soo weydiiyey waa kuwama bilaal de hadduu nebigu weydiiyey ma qarin kara marka wuxuu yidhi waa gabadh ansaariyada iyo saynab buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yidhi ayu zayaanibi waa saynabtee saynabadu waa badan yihiine markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waa imra'atu cabdillaahi ibnu mascuud weeyaan haweenaydii cabdillaahi ibnu mascuud qabay weeye markaasuu nebigu yidhi waxaad ku tidhaahdaa lahumaa ajraani ajru lqaraabati wa ajru sadaqati u sheeg laba ajar baa ka helaysaan dheh waxaa leedihin ajarkii qaraabada iyo ajarkii sadaqada labadaa ajar baa leedihin yacni ajarka qaraabada waa maxay waa silatu rixm qaraabo xidhiidhinna way idiin tahay sadaqana way idiin tahay buu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed ayuha alaxiba xidhiidhintu la xidhiidhiyo qaraabadu waa min addiin bale cabdillaahi ibnu nawfal ibnu alxaaris ibnu cabdilmuطalib waa nin aalu beytkii nebiga ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay cabdilmuطalib ibnu rabiica ibnu alxaaris ayaa wuxuu u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa la kulmay rabiicata bnu alxaaris waa rabiicata bnu alxaaris ibnu cabdilmuطalib yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ilmaadeer iyo alcabaas ibnu cabdilmuطalib oo adeerkiiya labada nin ee nebiga qaraabadiisii ka mid ah ayaa kulmay dabeetana waxay yidhaahdeen war labadaa wiil waa laba wiiloo ay dhaleen labadaa wiil intaynu isku darna inuu nebiga u diro oo aynu kala hadalno waxaynu ku odhanaynaa sakooyinkan iyo sadaqaadkan la soo ururiyo dadka ka shaqeeya ilaahay rasuulkiisiiyo ku dar ha shaqeeyaan oo dadkuba dee shaqada waxbay ku qaadanayaane wixii ay dadkuba qaadanayeen iyana ha qaataan warkaa iyagoo wadabo caliy ibnu abi aalib waa isla qoyskiisna ayaa u yimi markaasay u sheegeen wixii ay wadeen cali wuxuu yidhi war ka daaya war nebiga waxaa hawla tegina cali way ka cadhoodeene waxay dhahdeen war naga tagarado markii adiga nebigu inantiisa ku siiye kusoo dhoweeyey baad cali waxaa la yidhi adiga ku maqli mayno waa diraynaa labada inan adiga markii uu nebigu kuu guuriyaad leedahay kuwan loo guurin maayo waa laba wiil ay dhaleen bay rabaan in nebi maxamed u guuriyo dabeetana waa soo direen markii ay diideen cali wuxuu ku yidhi haddaba labadooda dira idinku ha raacine labada yaryarun ha u tagaan nebigu waxa weydiistaana idinku ka hadha labadiinna nina waaweyn labadii yaryaraa baa la soo diray markii salaaddii duhur la tukaday ayaannu albaabka uga dheeraynay bay yidhahdeen nebiga usii fadhiisanna markii uu albaabka noogu yimi annagoo fadhfadhinuu dhagaanna qabtay bay yidhahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi marka akhrija ma tusariraan waxaa qarsanaysaan ii sheega buu yidhi soo saara wixii aa qarsanayseen waxbaa meesha la fadhidaane sheega buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuuna soo kaxeeyo guriguuna geeyey buu yidhi
wuxuu maalintaa joogay bay leeyihin gurigii zaynab bintu jaxash haweenkii nebiga haweenay ka mid ah hadalkii baanu isku riixriixnay buu yidhi waar adigu hadal iyo adigu hadal labadayadii markii dambe midkood baa hadlay waxay nebiga ku yidhahdeen anta abaru nnaasi wa awsalu nnaas dadka adaa u samafal badan oo u xidhiidhin badan dee annaguna rag waaweyn oo qaan gaadhay baanu nahay dee waxaanu kuugu nimi inaad xoolaha sadaqada inaad walcaamiliina calayha haddii dee naga dhigto xoolaha sadaqada inaad nagu dartid oo dee dadkuba wuxuu hadhow shaqada ku helaya wax la mid aanu ku hello dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuu aamusay in doora markuu aamusnaa ayuu wuxuu yidhi ninka xadiiska warinaya wuxuu leeyay zaynab oo xagga dambe fadhida ayaa noo gacan haadinaysa oo le war aamusa halla haddina ku celinina hadalka nebigu markaasuu la hadlo wuxuu yidhi ina asadaqa laa tanbagii liaali muxamed innamaa hiya awsaaqu nnaas waar zakadu reer nebi maxamed uma cuntanta buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa wasakhdii dadku iska soo saaray yacnii aalu beytka nebiga sadaqadu mamnuuc bay ka tahay ma qaataan dabeetana wuxuu nebigu leeyahay aalu beytku sadaqa ma qaataan ee udcuwaa liya maxmiya nin maxmiyo la yidhaahdo waa ninkii khumuska nebiga hayay yacnii nebigu fayga xoolaha jihaadka lagu soo helo khumus ka mida buu leeyay 1/5 shan dalooloo dalool ninkii khumuskaa mas-uulka ka ahaa ayuu yidhi igu yeedha iyo nin kale oo ilmaadeeriyiin oo la yidhaahaa nawfal ibnu alxaaris ibnu cabdilmutalib labadaa igu yeedha buu yidhi labadii baa u yimi maxmiya ninkii la odhan jiray buu nebigu wuxuu ku yidhi ankix haada algulaama bnatak inantaada u guuri buu ku yidhi waa u geed fadhiistay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana labada wiil mid waa alfadal ibnu cabbaas oo cabdillahi ibnu cabbaas walaalkii dabeetana wuxuu ku yidhi maxmiyow inantaada wiilkan u guuri nawfal ibnu alxaaris ibnu cabdilmutalibna wuxuu ku yidhi ankix haada algulaama bnatak adiguna wiilkan kale gabadhaada u guuri yacni labadii nina uu u yeedhay laba hawloodoo ay kala dhaleen buu wuxuu leeyahy labadan inan ha loo guuriyo maxmiyana wuxuu kaloo ku yidhi xoolaha sadaqada maahae xoolaha fayga ee aad hayso asdiqacnuhumaa min alkhumus kada wa kada wa kada waxaad ka siisaa xoolaha faygana intaa iyo intaa ka sii buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni xadiidka waxay ku tilmaamayaan oo u deliishanayaan culammadu siduu nebigu qaraabada u xidhiidhinayey inuu xataa u guurinayey oo u geed fadhiisanayey oo ka bixinayey wixii kharasha ku baxayeyna uu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu ka bixinayey haddaba markaan warka soo duuduubno silada riximka la xidhiidhiyaa koow waxaynu leenahay waxay ka mid tahay diinta waxyaabihii ugu soo hordegay bale waxay ka mid tahay waxyaabihii jaahiliyada carbeedba ay ammaanta u taqaanay diintuna sugtay ee ilaahay subxaana wa tacaala uu sugayo qur-aan aad u badaninoo waaati dalqurba xaqahu miidhanaya oo dilqurbaha in ixsaan loo sameeyaana wuu soo arooray nusuus tiro badan nebiga calayhi salaatu wasalaamna oo ka soo aroortay inuu intaan ka soo qaadannay nusuustaasi oo sheegaysa cahdigii maka iyo cahdigii madiineba inuu nebigu masaladan ka hadlayay nusuustaasi oo sheegaysa in ilaahay uu ku barakeeyo dadka ficilkan sameeya nusuustaasi oo sheegaysa arsaaqda iyo guurku arsaaqda iyo da'duba cimriguba in ilaahay subxaana wa tacaala ku barakeeyo idan waxaynu leenahay markaa islaamku wuxuu farayaa dadku bulshadu inay isku xidhnaato dawaa'ir kale dambaysana way isugu xidhantahy daa'ira aluulaa naftaada marka la dhaafo ee ehelka iyo qaraabada waa waalidiinta waxaa ku sii xiga markaasi qaraabadii waxaa ku sii xiga jaarkii waxaa ku sii xiga masaakiintii iyo agoontii iyo dadkii kale ee ducafaalumujtamac waxaa ku sii xiga bulshada dhammaanteed waxaa ku xiga almukhaalifiin kuwa xataa diin ahaan aydan isku waafaqsanayn xidhiidhkaa loo samaynayana waa xidhiidh kelima tayiba waa sadaqa taladu waa sadaqa dulmigo aad ka joojisaa waa sadaqa maalko aad siisaa waa sadaqa yacni waxa laaliya wuxuu nebigu sadaqa ku sheegay oo dhammi waxay geli karaan inay noqdaan maxay silatu raxim haddaba westranka markaynu taagannay dadku maxay u shaqaysan waayeen iyo waa brifate dadku inay shaqaystaan waa lagula taliyaa laakiin laguma qadiyo inuu shaqaysto waa wax lagula taliyo wanaagsan laakiin wax lagu qadiyo maaha waa in la taageera wax la siiya sala allahuma calaa muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin